السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي أصحاب قالقة إيغو حيران إنت إداوطة ميول بأدونك أتكتشوكتان وحين نقول سلامي يا سلامة مسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريها وان كلا بادني بلسمانتا ووادي قبطين ولا شيء ملكي. اللهم صل على محمد. موضوع عن ربعنا كهضلا صحابي وموضوع حالة نفسيتك محابل الشذين كوبضيي حالة نفسيتك سومالي ضادو ما نسابريها الدنبي إني لنوليهين مركا وحان رباه إنا كهضلا محا كينو محا سومالي كوبضيي sidee aan uga hortagi karnaa maxaa bulshada u sababa inay uga xishooto waxyaalaha dhan aan raba inaan ka hadlo marka la socod wanaagsan insha Allah. asxaabta qaaliga iminka waxaan ku jiraa saad u jeediin waan socdaa rutiinigayga waad la socotiin mar walba maalin walba waan socdaa maadaama aan rabo inuu hilibka iga dhaco anoo socdaan rabaa mawduuca aan doonayo maanta inaan soo gudbiyo inaan halkan nigaga waramo marka saas ula socda su'aasha ugu horeysa la isweydiinay waxa weeye waa maxay horta mental health waa maxay xaalad nafsiyeedka ay Soomaalida ay la nool yihiin su'aashaas aan rabaa inaan nigaga jawaabo su'aashaas waxa weeye qofka horta marka ugu horeysa mental health hadaan maqashiin waa xanuunada ku dhaca dhimirka yani madaxa waa xanuunada dhimirka ee ku dhaca madaxa maskaxda marka saas awgeeda ayaan rabaa inaan uga hadlo maadaama ay nagu soo bateen marka saas ula socda su'aasha labaad oo aan rabno inaan isweydiino asxaabay waxa weeye maxaa keena xaalad nafsiyeedka waa su'aal aad u muhiim ah oo in la isweydiyo ay tahay iminkan waxa weeye maanta dhan aan socday runtii maanta dhan ma ahayn saacad iyo bar baan socday marka waa yaranasanaya insha Allah meel baan soo fadhiistay waxaan iga daba geenayaa maxaa keena waa su'aal fiican oo inaan isweydiino maxaa Soomaalida ku badiyay maxaa keena waxa weeye cadaadiska dhaqaaleed ee qurbaha yaala horta number 1 ayuu ka yahay dagaalkii sokeeye iyo burburkii oo wadanka ka dhacay number 2 kelinimada oo ku soo badatay qurbaha number 3 burburka qoysaska iyo dhibaatooyinka dhex taagan qoysaska number 4 iyo wax ka badan oo meesha aan ku soo koobi kareen marka waxaad ogaataan Soomaaliyay xanuunkan dhimirka wuxuu ku soo aad buu noogu soo badanayaa mana jecelnin haddaan nahay Soomaali inaan ka hadalno sababtoo waxaan u aragnaa wax ceeba mana ahan ceeb runtii waa caafimaad bulshada Soomaaliyeed waa inay ku baraarugtaa waxa weeye waa xaalado lala noolaado oo dhibaato dadku u geysanayo oo dhibaato u geysanay haduu nagu soo bato bulshada markaasaas ula socda waxa yaab leh Soomaaliyeed oo aan isweydiyaa runtii oo bulshada Soomaaliyeed ay ku baraarugsaneen waxaad arkaysaa meelaha ay bulshada iskugu timaado sida aroosyada sida maqaayadaha sida masaajidiyada sida meelaha ay jecel yihiin dadka ay ku wada kulmaan bulshada waxaad arkaysaa dadkii inay caadi yihiin marka aragti kor aad ka arkaysid marka inay labisan yihiin aad u jeedaa dad caadi oo cunaya oo shaqaysanayo oo noloshooda dabaranay inay yihiin waad u jeedaa laakiin dhibaatada ugu weyn waxa weeye guryaha ayaa qof walba qoys kastaba dibkiisu qarsanaya sababtoo xaalad nafsiyeedkan iyo xanuunada dhibir ku dhaca Soomaalidu waxay u arkaan horeba waataan uga soo sheekay oo inii soo sheegay wax ceeba laakiin wax ceeba ma ahan runtii sababtoo waa wax caafimaadkaaga ku jiro oo caafimaadka qoyskaagana ku jiro oo haddaad la tacaali wayso oo haddaad ka hortagi wayso guriga dhan saameyn xoog leh ku leh gurigana markuu ka soo baxana bulshada oo dhan saameyn xoog leh ku leh waayo qofkii waa qof dhar iska wata laakiin maskaxda wax si ka yihiin wayna nagu badan yihiin haddaan nahay Soomaali marka Soomaaliyay ceeb yaa loo arkin waxyaalaha ugu muhiimsan oo in laga hadlo oo in la falanqeeyo oo in la isweydiiyo oo ma aragtay in loo raadsado dad ma aragtay terabiya weeyaan runtii aad buu noogu soo batay ishaana geliyay waxa weeye Soomaali
xaalad nafsiyeed ayay la tacaalaysaa. tusaale haddaan ka soo qaado hadda social media waan wada ognahay dhibaatada ka jirta. waxaad arkaysaa dad oo aad u malaysa inay dad caadiya yihiin, intay soo furtaan live waxay caynayaan nebiga, waxay caynayaan qabiilada, waxay ka sheekeynayaan fusuq iyo wax aan loo joogin. wax anoo taas la yaaban ayaa waxaad arkaysaa 20,000 10,000 oo qof ah oo daawanayso, isla markaasna u diraya libaaxyo iyo shimbiro. oo halkaa habeen dadkaas aad u jeedid waxa laga yaabaa intaasoo kumanaan oo lacaga inay qaataan. marka waxa ku cadeynayso dadkaas wax dirayo, dadka daawanayo oo dadka noocaas oo kala ah inay iyagana xaalad nafsiyan ay la nool yihiin. marka saa awgeeda u leeyahay bulshada Soomaaliyeed intooda badan waxa weey wax la nool yihiin xaalad nafsiyan. waad fahanteen soo maahan? waxaad arkaysaa Soomaaliyeed caruurta yaryar oo say wallaahi oo wadamada ku dhalanayo hadda waxaad u malaysaa inay uu ku soo badanayo xanuunka ma aragtay dhimirka. waxaad arkaysaa caruur markay 20 ay gaaraan ma og waxa sabab u ah ilmihii oo iskuulkii secondary-ga markuu dhameeyo dugsigii sare uu dhameeyo isku diyaarinaya jaamacad in ilmihii madaxa laga galayo oo aad arkaysaa isagoo qeylinayo, isagoo ma aragtay dhibaato xaalad nafsiyan dhibaato sheeganayo, xaalad nafsiyan galayo. markaad weydiisidna oo taqaatiirtan waxa lagu leeyahay waa xaalad nafsiyan. inta badan caruurta wadamadan ayuu ku yimaadaa markay 20 ay buuxinayaan. marka aan waxaan is iri waa yani bulshadan Soomaaliyeed ee is caburinayso. marka xanuunka adiga aad la nooshahay waxaad ogaataa haddaad tahay hooyo, haddaad tahay aabbo, haddii heredity aad u leedihiin inuu caruurtaad u gudbayo. marka way xanuun kulushahay runtii markaad aragtid ilmo aad dhashay oo mustaqbal leh oo wadan mustaqbal opportunity leh dhex jooga, aad ogtahayna ilmahaagii inuu yahay qof firfircoon oo waxbarashada dhinac walba ku wanaagsan oo la rababa inuu mustaqbal fiican ka samaysto wadamadan. xanuun noocaas oo kale la soo darsa waa waxa weeye waa arin aad u xanuun kulul Soomaaliyeed. marka taa aan ka wado waxa weeye yaanan ceeb u arkin, meel walba ayuu naga galayaa, wuu ku faafayaa mujtamaca Soomaaliyeed. bulshada Soomaaliyeed waa inay ka hadashaa arrimahan. waxaad arkaysaa Soomaaliyeed oo iga yaabiya runtii qof aad maanta aad isla joogteen cunto wada cunteen, aad saaxiibad tihiin mise macrifo aad tihiin mise qaraabo aad tihiin, kadibna waxa weeye nabad aad ku kala tegaysiin. beri ayaa jidka aad ku wada kulanteen, waxaad tiri salaamu calaykum see tahay baayo, maba lagu salaamin, kor iyo hoos inta lagaa eega sanka lagu kala rogrogay lisqalqaloociyey. waa yaabisa waxaa leedahay maanaa waala mise cadan baa laga heesaya, qofka maxaa ku dhacay, maxaa leeyabaad hurdada ugu tagtay aad kula dagaashay. marka laakiin wuxuusan ogeyn inuu la nool yahay xanuunka dhimirka, xaalad nafsiyan inuu la nool yahay. waana waxyaalaha ugu badan, xanuunada ugu badan ee aan ka dhaxalnay qurbaha. markaas Soomaaliyeed xaaladahan sida uga hortagi karnaa, sidee qofka uu caawimaad u raadsan karaa. waxyaalaha looga hortagi karo waxa weeye horta waa in bulshada ay fahantaa waxaan inuusan ceeb ahayn. markaas ayaa laga hortagi karaa iyo inay caawimaad raadsato meel walba ay adduunka ka joogto. hadduu isku arko qofka inuu xaaladaas la nool yahay waa inuu caawimaad raadsadaa. iminkana waxa weeye socodkii soo gabagabeynaya insha Allah. marka waad u jeedaan waan socday maanta maasha Allah tabaarak idinkana maasha Allah isoo dhaca. marka waxaan ku soo gabagabeynayaa mowduucayga haddii aad la nooshahay gabar yahay mise wiil yahow oo i daawanayo, waa sida ugu dhaqsaha badan inaad u raadsatid caawimaad, inaadan ka xishoonin. haddaad la nooshahay qof noocaas oo kalena inaad isla markii caawimaad aad u raadisid, bulshada aad u sheegtid, dadka kugu dhow aad u sheegtid, uu noqdo wax caadi ah,
ma ahan wax la isku caayo ma ahan wax laga xishoodo ma ogi ani Soomaalida si u dhaqanto runtii laakiin dad ummadahaas kale waxay u hormareen ee hore ugu socdeen waxa weeye dhibaatooyinka oo saameynta xooga ku leh mujtamaca way ka hadlaan annaga laakiin bulshadeena Soomaaliyeed kama hadalno marka please haddaad la nooshahay maxaa la yiraahdaa xaaladaha nafsiyeenka wax ceeba kuma fadhiyo ee raadso caawimaad sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu